كلنا دي بلادين ويسوي مادين شالية دارير سومالي لان يكون عند دالكم بريتين إيو مسؤولين تسفارة جمهورية دا سومالي لان وفرد دالكم يوكي مسؤولين تيفي كغارن كجمهورية دا سومالي لان غارض يوروب إيو مسؤولين كلو كترسان قولها شرعي دجين تا جمهورية دا سومالي لان يقولها ديغان كي جمهورية دا سومالي لان oo hogaaminayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha sharci dejinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xaamid iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta reer Soomaaliland oo kamid ahaa General Maxamed Aadan Dabagale oo haatan ku sugan dalkan UK isla markaasina la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga iyo xubno kale oo hore wasiir uga ahaan jiray jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka dhacday xafladaasi magaalada London. xafladan ayaa waxa ay ahayd xogoraysi isbarasho iyo tala kala qaadasho ay jaaliyada iyo mas'uuliyiintaasi ay isku wareysanayeen dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladooda waxa kamid ahaa sida tan anagu wafti baanu ahayn afar ka kooban oo golihii wakiilada ama baarlamaanka qofba sidoo yaqaano waxaan isku soo barnay dhowr dal oo Finland kamid tahay baarlamaankeeda iyo wasaaraddeeda arrimaha dibadda aanu la kulannay mucaawiminkii Soomaaliland kala hadalnay oo ay intii 4 sanadood u dambeysay ay bixinayeen lacagtay meel wada martay la qaybin doono iminka wixii ka dambeeya Sweden baanu soo marnay baarlamaankeeda la kulannay Jarmalka waan xiriir cusub furanay oo iyaguna ogaaday xaqiiqada oo ahayd wadamadii ugu horeeyay ka jawaabay باقي أما قوان كي كسب حي وزارة دين دوليستا إن فيزا سومالان on arrival لقو قاعدو doorashadii soo afjartay ee labadii madaxweyne gacanta ay soo dhiibeen ee ay ku kala tageen ayaa waxa la moodaa inay idinka wax idinkaga hadheen qolooyinka hore kelmadan ku dhun baan idinku oranaya war kaadhka maalinta campaign-ka la xoqo ee dabeedna labada madaxweyne soo afjaraan ee la tuuro ilma real idinkuna iska tuura kelmadda qoladii horena waa ku soo yidhi waxaan isleeyahay kelmadaasu waa kelmad idinka idin anfacaysa 6,000 mayl ama wax la mid ah dalkii ayaa ka soo durugteen maxaa xanaftii doorashadaana sii xoqaysa iyo xanaftii doorashadaana kala fogeysay maxay idin taraysaa waxa weeyaan safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee UK waxay safaaradani qabataa waxyaabaha ay qabtaan safaaradaha UK jira oo dhan waa kow waxa weeyaan qaybta qunsuliyadda waa laba qaybta politicska waa saddex qaybta community and public relationska waa saddex waa afar qaybta maxaydanay communicationka IT-ga waayo halkan UK waa meesha waxna laga dumiyo waxna laga dhiso sida ay raggii hore sheegayeen baan la mid ahay halkan haddaan doonaynayna wax dhisno haddaan doonaynayna wax qabsanno waan qabsan karaynaa safaaradda runtii tiim qiimo badan oo hablayeena malaba jooga oo runtii shaqadooda si hufan u qabta waxaan doonayaa intii caawa halkan joogta iyo guud ahaan reer Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland qofka wanaagsan ee gobernimada leh ee qiimaha leh goobtu way ilaashataa daahir tukaale inaynu wada ilaashano Soomaaliland lix madaxweynaha soo maray lixdii ugu la shaqeeyay maxaynu ku kordhinanaa wadankeeni anigu waxaan qabaa waxa ugu yareen ku kordhin karnaa qofka aan wax la taaban karo ku kordhin karin inaanad wax u dhimin maxay noqonaysaa waxaanad wax u dhimayn waa inaan qowlkaaga iyo waxaad qorayso iyo waxaad sheegaysaa ummadii halkii joogtay dhibaataysan dib u dhicin haddii aad wax tari karto oo wax dhisi karto dhakhtar tahay oo lawyer tahay oo engineer tahay inaad wax ku kordhin karto marka philosophy-gaas aan idinka tagayaa kole waa soo dhaweynun waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid dalkii anoo kala reebayn waxaan leenahay soo dhawaada si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa safiirka cusub iyo ku-xigeenkiisa oon leeyahay ilaahay xilka haydin fududeeyo bisha May sanadka dambe in doorashadii golaha deegaanka ee wadankani dhacayso local government waana doorashada wax bedesha waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inay isdiiwaangelisaan iminka diiwaangelinta iminka ay socotaa xaq baad leedahay wadani baad tahay codkaaga dhiibo waxa loo baahan yahay inaan ka qayb galno siyaasadda sida xildhibaanadu sheegeen it's vital waa inaan ka qayb galnaa siyaasadda
anigoo ku hadlaya magaca xisbiga ka markastana qadiyadayada iyo waxqabadkayga hore markaygu uu yahay inaanu xoojinno qadiyadda reer Somaliland iyo midnimada reer Somaliland in badan baynu kolley rafaad badan soo galay maanta midnimaynu u baahannahay qarannimaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsannaa baynu u baahannahay waxaan jecelahay inaan intii nala soo magacaabay ee TV-ga qaranka naloo soo magacaabay oo aan si weyn uga mahad celinay mas-uuliyadda xilka culus ah ee uu noo egbaday madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inaan laba kalmadood aan ka idhaahdo runtii TV-gu waa mas-uuliyad aad u weyn oo mas-uuliyad qaran oo xilkeedu uu la fuulay waxaanu jecelahay inaan laba kalmadood isbeddel weyn ayaan jecelahay in TV-gii hore ee qaranka iyo meeshii uu deganaa waanu ka wareegnay istuudiyo cusub oo la jaan qaada dowladda wadajir iyo waxqabad ee madaxweyne Cabdiraxmaan uu hogaaminayo inaan u gudbo waxaan soo dhaweynayaa aan u hambalyaynayaa safiirka iyo safiirka xigeenka oonan asarkin intii la magacaabay waxaanan kula dardaaraya inay hawl culus UK taalo taagnahay halkan idinku marka joogtaana sidii jaranku idinku yidhi inaa isku mid noqotaan baa idiin fiican nimadan soo qaban qaabiyay xafladan bilan ee quruxda badan leh ayaguna ku soo biiray maxaa la yiraahdaa ururadii ka sii jiray UK waxaan idinkana idin rajaynayaa inaad ku wax qabata noqdaan oo dadka lagu daydo noqotaan baan idinkana idin rajaynayaa caawa waa soo dhaweyn safiirka cusub iyo ku-xigeenkiisu iyo mashiinka safaaradda Somaliland Councilor Daytukale waxay nooga baahan yihiin in ay la shaqayno oo aynu soo dhaweyno oo aynu isku duubnaano madaxweynaheena Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi dadka in la soo ururiyo dawlad kasta oo timaada iyada xil ka saarantay inay dadka soo ururiyaan waxa weeye madaxweynahani wuxuu qaatay lanka inuu dadka isu soo dhaweeyo waa runtii arrimaha loo baahan yahay in ummadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka UK inay joogteeyaan shirarka noocan oo kale ah inaynu wada tashanno inaynu kala war qaadanno inaynu isxog waraysanno waa mid muhiim ah maanta dalkeennii ilaahay mahadii halkii ugu wanaagsanayd buu marayaa waana ka sii horumarayaa insha Allah biidnillaahi kariim war farxad leh ayaynu maqli doonaa dhawaan ka hor dhici mayno laakiin biidnillaahi tacaala war farxad laynu maqlaynaa adduunyadii waxa ay qirtay oo aqoonsatay waxa weeye waaqica Somaliland ka jira xafladda ayaa ku soo gabagabowday jawi safgarad iyo farxad Caynaawi Cismaan Ducaale warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland London